السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا شرفت له أدونك مeel kastaa ka joogteen kusoo dhawaada cunto macaan channel fadlan maxaan kaa codsanayaa channelka daa soo booqate inaad subscribe ii sartid muuqaalkan hadduu kusoo gaare maxaan kaa codsanayaa inaad like ii sartid asxaabtaadii familigaada la sheegaraysid aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay asxaabteyda qaaliga maanta maxaan sameynayaa qado bariis biryani iyo macmacaan qadada kadib insha allah la socod wanaagsan soo dhawaada بسم الله meeshan maxaan ku haystaa 5 xabo basal marka hore waan jarjarayaa asxaabay basasha dhamaantood waan soo jarjaray dhinaca kale saliid ayaa dabka ii saaran saliid markay soo kulaato kadib basasha ayaan ku soo ridayaa kadib maxaan sugayaa basasha ilaa ay brown ka soo noqoto asxaabay basasha markana diyaar waay saliid ayaan ka bixinayaa saxan aan tissue saare ayaan saarayaa asxaabay markana chickenka ayaan rabaa xawaajiyo inaan mariyo baaquligan maxaan ku haystaa nus kiila chicken oo qaybta steak ugu horeyn maxaan ku darayaa hal qaado oo ton kadib maxaan ku darayaa hal qaado sanjabiil kadib maxaan ku darayaa hal qaado yar xawaaji dhudhuub kadib maxaan ku darayaa hal qaado yar paprika kadib maxaan ku darayaa hal qaado yar xawaaji burbur asxaabay markana maxaan kusoo darayaa 2 qaado yaanyo shishiid kadib maxaan ku darayaa 2 qaado saliid basasha aan ku shiilay ayaan isticmaalayaa kadib markan maxaan ku darayaa nus bakeeri plain yogurt kadib maxaan ku darayaa hal qaado yar oo cusbo kadib maxaan ku darayaa wax yar oo sacfaraan oo orange kadib intan ayaan si fiican isku darayaa aan digaag u marinayaa asxaabay markana maxaan kusoo darayaa basashii aan shiilayay nus ayaan kaga soo darayaa nuska kale gadaal ayaan ka isticmaali doonaa insha allah kadib markan intan ayaan haddana si fiican isku sii darayaa kadib waan daboolayaa dhinac ayaan iskaga dhigayaa ilaa iyo 1 saac asxaabay saliid ayaan dab kusoo celiyay kadib maxaan kusoo darayaa 4 xabo baradho yaryar aan soo jarjaray kadib markan maxaan sugayaa baradhada ilaa ay kasoo bislaato baradhada markana diyaar waay saliid ayaan ka bixinayaa markana maxaan karsanaynaa suugada biryaniga digsi ayaan dabka soo saartay kadib maxaan kusoo shubayaa xoogahoo saliida markay soo kulaato kadib maxaan kusoo darayaa basasha qaybta kala harte wax yarna waan ka reebay gadaal ayaan ka isticmaali doonaa kadib maxaan kusoo darayaa 2 qaado yaanyo shishiid kadib markan maxaan kusoo darayaa nus bakeeri plain yogurt kadib intan ayaa marka hore si fiican isku darayaa asxaabay markana maxaan kusoo darayaa digaaga kadib waan daboolayaa dab dhexaad ayaan ku karinayaa ilaa iyo 10 daqiiqo
10 daqiiqo kadib digsiga ayaa markana usoo laabtay. Maxaan kusoo darayaa nus bakeeri oo biyo ah. Kadib haddana waan daboolayaa, maxaan ku karinayaa dab gaaban ilaa iyo 10 daqiiqo kale. asxaabay markana digsiga ayaan usoo laabtay. Maxaan kusoo darayaa nus bakeeri oo biyo ah. asxaabay markana maxaan kusoo darayaa hal qaado yar oo sokor ah. Sokorta dhadhanka suugada ayaa balance garanaysaa. Kadib markan maxaan kusoo darayaa qaadada yar nuskeedii xawaaji isku dardar ama garam masala. asxaabay markana maxaan kusoo darayaa baradhadii aan shiilayay. Kadib waan daboolayaa, dab gaaban ayaan kusii karinayaa ilaa iyo 3 daqiiqo. saddex daqiiqo kadib suugadeeni markana diyaar waay. Dabka ayaan ka qaadayaa. Maxaan rajeynaa inaad ka hesheen. asxaabay markana bariiska ayaan karsanaynaa. insha Allah la socod wanaagsan. digsi aan biyo kusoo shubay aan dabka soo saaray. Kadib markan maxaan kusoo darayaa heel qorfa, dhagayare iyo filfil. Kadib maxaan kusoo darayaa saliid xoogo ah iyo cusba. Kadib waan daboolayaa, maxaan sugayaa biyaha ilaa ay kasoo karkaraan. asxaabay biyaha markana way soo karkareen. Kadib maxaan kusoo darayaa 3 bakeeri bariis basmati. Kadib maxaan sugayaa bariiska ilaa uu kasoo karo xoogaho. aad uma karinaay, wax yar markuu adag yahay ayaan biyaha ka miirayaa. bariiska markana diyaar waay. biyaha ayaan kasoo miirayaa. asxaabay bariiska markaan biyaha kasoo miiray digsiga ayaan kusoo celiyay. Kadib maxaan kusoo darayaa sacfaraan oo 2 nooc ah, orange iyo yellow. Kadib maxaan kusoo darayaa basasha qaybta kala harte. Kadib mara ayaan ku daboolayaa. Daboolka ayaan saarayaa, dab gaaban ayaan ku huurinayaa ilaa iyo 15 daqiiqo. 15 daqiiqo kadib bariiska markana diyaar waay. sidan qurux badan ayuu kusoo baxay. waa bariis furfur aad macaan badan. maxaan rajeynaa inaad ka hesheen. asxaabay markana maxaan diyaarinayaa yoogadaan ugu talagalay bariiska. baaquli ayaan soo qaatay. maxaan ku shubayaa 2 qaado plain yogurt. kadib maxaan ku darayaa 3 qaado oo vanilla yogurt ah. labadan yogurt ayaan marka hore si fiican iskugu darayaa. kadib markan maxaan kusoo darayaa 1 xabo qajaar aan soo hoolay. kadib maxaan ku darayaa wax yar cusbo ah iyo wax yar filfil ah. intan ayaan marka si fiican iskugu darayaa. yogurtkeeni markana diyaar waay. asxaabteyda qaaliga ah markana maxaan sameysanaynaa macmacaanka qadada kadib oo tiramisu ah. insha Allah la socod wanaagsan.
asxaabtayda qaaliga eh markana macmacaanka ayaan samaysaneynaa. meeshan maxaan ku haystaa mascarpone cream 200 gram ayaan ka isticmaalayaa. baaquliga ayaan ku ridayaa marka hore, kadib makiinada ayaan usoo qaadanayaa, maxaan garaacayaa, aan si fiican u qasayaa ilaa iyo 1 daqiiqo. asxaabay creamka markana diyaar waaye, dhinac ayaan iskaga dhigayaa. markana baaquli kale ayaan soo qaatay, maxaan ku shubayaa 1 bakeeri oo whipping cream ah. kadib maxaan ku darayaa 2 qaado sokor iyo 1 qaado vanilla carfise ah. kadib markan creamka ayaan si fiican u qasayaa ilaa uu kasoo adkaado. asxaabay whipping creamka markana diyaar waaye, markana labada cream ayaan si fiican iskugu darayaa. asxaabay labada cream markana diyaar waaye, si fiican ayaan iskugu daray. kadib markan maxaan soo qaadanayaa bacda oo keega lagu sharaxo, creamka ayaan ku shubayaa. asxaabtayda qaaliga eh markana maxaan soo qaatay baaquli, maxaan ku shubayaa 1 bakeeri oo biyo qandac ah. kadib maxaan ku darayaa 2 qaado yar oo kafeey ah. kafeega ayaan marka hore si fiican u qasayaa. meeshan maxaan kusoo diyaarsaday buskudka tiramisu loo isticmaalo oo lady fingers la dhaho. maxaan ka isticmaalayaa ilaa iyo 12 xabo. 1 xabo ayaan soo qaatay, dhaxda ayaan ka jibinayaa. kadib kafeega ayaan dhex gelinayaa, kadib galaasaha ugu talagalay ayaan ku ridayaa. insha Allah dhamaantood markaan bogo aan habeeyo ayaan isku soo laabaneynaa. asxaabay markana buskudka maxaan kor kaga shubayaa creamka, kadib haddana mar labaad ayaan sameynayaa. asxaabay markana maxaan kor kaga shubayaa chocolate-ka cocoa
ugu dambeyntii macmacaankeeni sidan ayuu kusoo baxay. Waa macmacaan aad u fudud, aad u macaan badan. Maxaan rajeynaa inaad ka hesheen. waa bariis biryani iyo macmacaan qadada kadib ku anfici doono. Maxaan rajeynaa inaad ka heli doontiin. Inta haysanin allaha siiyo, inta haysatan allahu barakeeyo. ilaa iyo intan hadda ila soo gaartay waan kaaga mahadcelinayaa. channelka haddaad soo booqatay maxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii sartid. muuqaalkan hadduu kusoo gaaray maxaan kaa codsanayaa inaad like ii sartid. asxaabtaadii familigaada la sheegaraysid. muuqaalkan muuqaal lamida intaan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.